بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسو دوادا ورركا هبينمو xogta cayaaraha qodobada ay idinku soo gudbin doonaan waxa kamid ah Eden Hazard oo markii ugu horeysay lagu sawiray isagoo maaliyadda Real Madrid gacanta ku haya Laura Sagne oo loo diiday inuu ku biro Bayern Munich Antonio Conte oo ka hadlay mustaqbalka Icardi iyo Jerome Boateng oo xiiseynaya inuu ku biro PSG ama Juventus iyo wixii kale oo nagu soo kordha iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda halka uu marayo caawa balse inuu ku hormarnay Eden Hazard ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea balse heshiiska ugu biirayo kooxda Real Madrid oo la soo gabagabeeyay kadib markii 115 milyan lagu iibsaday ayaa markii ugu horeysay waxa la arkay isagoo maaliyadda Real Madrid gacanta ku haya oo sawir markaa laga qaaday ciyaaryahankan oo markaa ka muuqata jacayl weyn oo u qabo naadigiisa cusub ee Real Madrid ayaa lagu sawiray xilli uu ku sugnaa gudaha dalkaas Spain kulankii ugu dambeeyay ee magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan koobka Yurub Liigaha ku dhaxmareen kooxda Chelsea iyo Arsenal oo markii Chelsea ay ku guuleysatay oo Hazard warbaahinta la hadlay sheegay in uu markaasi kulankan uu ahaa midkii ugu dambeeyay oo markaa ku macasalaameynayay taageerayaashiisa Chelsea ayaa waxa markii ugu horeysay la leeyahay in markaa sawir isagoo isku sawiray maaliyadda Real lagu arkay gudaha dalkaasi Spain ninka odayga waa ku daayay toos ayuu markaan Real ugu biiray dhinaca kalena macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Inter Milan Antonio Conte ayaa waxa uu ka hadlay mustaqbalka Mauro Icardi macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Inter Milan ay markaas heshiiska la gaartay Antonio Conte ayaa markii ugu horeysay markii lagu dhawaaqay inuu macalinka u yahay kooxda Inter oo markaa ka hadlay mustaqbalka ciyaaryahanka Mauro Icardi waxaana uu sheegay in xilligan halkan uu yimid tartan inay galaan waxaana sidoo kale uu tilmaamay in naadiga Inter Milan ay tahay naadi fac weyn oo dalka Talyaaniga si weyn loogu qiimeeyo marka u baahan yahay inuu heer weyn uu gaarsiyo oo Champions League maadaama ay ku soo baxday heer fiican sanadka xiga marka uu gaarsin doono waxa uu tilmaamay heerkii Juventus uu gaarsiy intii uu ku sugnaa kooxda Juventus oo kale inuu marka la maagan yahay in Interna uu gaarsiyo sidoo kale Antonio Conte oo BBC da la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in Lukaku oo dalka Belgium ka u dhashay kooxda Manchester United u ciyaara la warhay inuu markaa Inter imaanayo waxaana uu ku tilmaamay arintaas mid been abuur ah oo isagu wax uu ku yaan lahayn laakiin Icardi uu si joogi doono garoonka kooxda kubadda cagta Inter Milan San Siro Stadium واتهاي ولي وركان ayaan ku guda jirnay Jerome Boateng oo ah ciyaaryahan reer Germany oo ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa waxa uu sheegay inuu markaas xiise gaar ah u hayo inuu ku biro kooxda Juventus ama kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ninkan oo January sanadkan aynu soo dhaafnay markaa kooxda kubadda cagta Manchester United ee aad markaasi u doonaysay laakiin u suuragal weeday inay heshiis la gasho isagoo laftigiisa uu diiday inuu Old Trafford yimaado ayaa imika waxa markaasi boos joogto oo san ka haysan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich isagoo markaa raadinaya boos kale oo koox kale inuu ku biiro waxaana uu sheegay inuu xiiseyn lahaa inuu markaa u dhaqaaqo kooxaha kubadda cagta Juventus iyo waliba PSG midkood ugu dambeyntiina Manchester City ayaa u diiday Laura Sagne inuu markaa ku biiro kooxda kubadda cagta Bayern Munich mustaqbalka Laura Sagne Manchester City ayaa ilaa iyo haatan markaasi mid wanaagsan oo in muddo aan maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalhay inuu ka tagayo garoonka Itixaad oo ku wajahan yahay dalka uu isagu ka soo jeedo Germany gaar ahaan kooxda weyn ee Bayern Munich laakiin waxa la sheegay in marka ciyaaryahankan gabi ahaanba uu sii joogi doono garoonka Itixaad The Guardian oo arintaasi wax ka qortay ayaa waxay sheegtay in 23 jirkan reer Germany uu ciyaara kooxda markaasi Manchester City uu yahay udub dhaxaadka koowaad ee macallin Pep Guardiola iyo waliba kooxda kubadda cagta City in markaasi aan xilligan ahayn xilligii la fasaxi lahaa waa ciyaaryahan daayar wax weyn markaasi ka bedeli kara xaalad kasto markaasi kooxi ay ku jirto isagoo markaa uu kamid yahay ciyaartoyda kooxahaasi u ciyaaraya hadaba The Guardian ayaa waxay inta ku dartay in ciyaaryahan Laura Sagne uu isagu laftigiisu ku faraxsan yahay inuu baaqi ku sii ahaado kooxda kubadda cagta ee
Manchester City.